بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دعوذياشا قيمها لي واحد كسو دواتان برنامج كميدا برنامجيدي تحانها إنو أها إنو قهد لجرني مواضيع ذاك الدوان إلى حريرة الرماها وعيقلينتا البرنامجيان نقول تلقلني إنو دادكينا أركتيدا نولوشا إي كقبان aan ka tusno dhinacyo badan aan wax badan isugu sheego aynu wax badan kala faa'iideysano barnaamijka maanta aan idiin dooray waxa la yiraahdaa go'aanada noloshaada waa barnaamij u gaar ah dhalinyarada laakiin qof kasta uu ka faa'iideysan karo maxaan dhalinyarada uga gooni yeelay dhalinyaradu waxay maraan ama ku jiraan xaalad ka duwan xaaladda qofka weyn xaaladdu qofka weyn ka soo gudbay ayay dhalinyarada ku jiraan waxaa jira go'aano noloshooda saameyn badan ku leh oo aysan weli qaadan laakiin dadka waaweyn ee guursaday caruurta leh shaqeeya ay mar hore soo qaateen sidaa daraaddeed waxaan barnaamijkan ugu talagalay inay dhalinyaradu ka fiirsadaan oy ka fikiraan inta aanay qaadan go'aanada noloshooda saameynta ugu weyn ku yeelanayo go'aano badan baa jira laakiin waxaa jira laba go'aan oo ugu muhiimsan oo qofka dhalinyarada ah noloshiisa saameynta ugu weyn ku yeelanaya haddii labada go'aan oo qofka dhalinyarada ahi si khalad u qaato waxay ku yeelanaysaa saameyn badan noloshiisa waxaana dhici karta inuu wax badan maxaa la yiraahdaa dib uga qoomameeyo go'aanadaas uu qaatay labada go'aan ee ugu muhiimsan qofka dhalinyarada ah noloshiisa marka inuu qaato ay tahay mid waxa weeye midka koowaad waxa weeye qofku dhalinyarada ah waxa uu baranayo oo uu rabo inuu ku shaqaysto oo mihnad ka dhigto arrin muhiima waa go'aan ah inaad si fiican uga fiirsatid la tashatid dad badan wax badan aad ka baaraan degtid go'aankaas waayo waxaad barateed ku shaqaysanaysaa waa wax kula soconaya noloshaada oo dhan arrinta labaad ama go'aanka labaad ee aad qaadanaysaana waxa weeye qofka dhalinyarada qaadanayo oo noloshiisa saameyn badan ku yeelanaya waxa weeye cidda uu nolosha la wadaagayo wiil iyo gabadhba doorashada uu dooranayo qofka dhalinyarada ahi lamaanihiisa uu nolosha la wadaagayaa iyaduna waxay ka mid tahay go'aanada muhiimka ah ee ka fiirsiga u baahan ee qofka dhalinyarada ahi loo baahan yahay inaan ku degdegin waayo qofkan aad nolosha la wadaagtay ee aad dadka 6 bilyan ama 7 bilyan ee qof ee adduunkan ku nool aad kala soo dhex baxday wuxuu kaaga baahan yahay ka fiirsi badan waayo noloshaada oo dhan buu kula soconaya sidaa daraaddeed waxa dhacda hadda in furiinkii uu aad u tiro batay dadka Soomaalida dhexdooda dhalinyaro iyo dad waaweynba laakiin dhalinyarada uu aad gooni ugu sii yahay wadankii gudihiisii iyo dibaddaba waxa aad u tiro batay furiinkii haddaba waxaan halkan idinku soo koobayaa talooyin aan rabo inaan dhalinyarada ugu talagalay inaan la qaybsado way aragnimadeydii aqoontii buwaagtii aan akhriyay fikirkaygii aan isugu soo ururiyay oo ugu talagalay dhalinyarada inaan maxaa la yiraahdaa ila qaybsadaan waxa dhici karta waxyaalo badan oo nolosha aasaas u ahaa inaynan isu gudbin oo qof waliba ay noqoto inuu goonidiisa u soo rafaado u soo jabo sidaa daraaddeed waxa muhiim ah in way aragnimada nololeed la isu gudbiyo waxaan haddaba halka kan ugu hormarayaa qaybta ah maxaa la yiraahdaa qofku waxa uu baranayo qofka halkan waxaan ku tilmaaminaa laba go'aan oo qofka noloshiisa raadka ugu weyn ku yeelanaya waxaanu tilmaamay waxaad baranaysid oo aad doonaysid inaad xirfad ka dhigatid ood ku shaqaysatid oo risiqaaga iyo kasabkaaga haddii ilaahay kuu fududeeyo aad kula soo baxdid waa go'aan u baahan inaad qaadatid oo loo baahan yahay inaad aad uga fiirsatid ku degdegin dadka kale waxa ay kuu sheegayaan ama waxaana shaqo lagu helaa ama tanaa fiican aadan eegine adigu aad isu qiimaysid arrinta labaadna waxa weeye sidii markii hore aan sheegay qofkaad nolosha la wadaagaysid qofkaad dooranaysid lamaanahaaga aad dooranaysid inuu nolosha kula wadaago waa arrin ka fiirsi u baahan haddaba dhalinyarooy waxaan halkan rabaa inaad ila wadaagtaan talooyinka aan rabo inaad aynu wada wadaagno oo ah qofku marka uu rabo inuu wax barto saddex shay ba asaas u ah
waxaana jira video gooni oo duubay oo ku saabsan arrintaas. Arrinta koowaad waxa weeye qofku inuu waxaan jacayl u hayo. waxaanaad baranaysid waxaa jira xirfado aad u tiro badan, kumanaan kun oo xirfadood oo lagu shaqaysto, dhakhtar, injineer, macallin, maxaa la yidhaahdaa xanaano xoolo, farsamo yaqaan, waxaa jira xirfado journalist, xirfado aad u tiro badan oo nolosha ah. xirfadda aad ka dooranaysid ood sidaa intaa usoo qaadatid aad leedahay yes tanaan doonayaa inaan noloshayda intaan noolahay xiise u hayo oo baranayo oo ku shaqaysanayo oo dadka uga faa'iideynayo, waa inay noqotaa xirfad ama waxbarasho aad xiise iyo jacayl u haysid. ma aha in waalidkaa kuu sheegay oo kugu yiri waa waxbarasho fiican, ma aha in asxaabtaada kuu sheegeen, ma aha inaad meediyaha ka dhageysatay. waxaa muhiima adigu qof ahaan waxaan aad rabtid inaad baratid inaad xiiseynaysid oo aad jeceshahay. qodobka labaad ee muhiimka ah waxa weeye oo aad ku dooranaysid waxa aad baranaysid dhalinyaro waxa weeye intaad fursadda haysataan ka faa'iideysta oo ka fikira in waxaan aad baranaysid aad shaqo ku helaysid. haddaad soo baratid 5 sano waxbarasho ama aqoon, hadhow markaad suuqa timaadid aadan shaqo ku helaynin oo ay noqonayso adiga in waalidkaa dib kuu masruufo, ay noqonayso shaqo aan xirfadaada ahayn inaad ka shaqaystid, ay noqonayso inaad muddo badan baagamundo ahaatid, ay noqonayso inaad niyad jabtid, ay noqonayso sanado badan oo noloshaad inay kaa lumaan. intaanay kugu dhicin waa inaad ka fikirtaa waxaan aan baranayo suuq shaqo ma ku helaya. okay haddii aadan ku helaynina fikir arrinta labaad kale waxa weeye okay waxbarashadan aan baranayo hadda suuq shaqo anigu kuma helin, laakiin anaa shaqo ku abuuri kara. anaa shaqadan aan baranayo ayaan waxaan ka dhigayaa meesha aan anigu raadin lahaa inaan cid u shaqeeyo, aniga ayaa isku dayaya inaan shaqo ku abuuro. tanaana wanaagsan qofku inuu u barto tacliinta uu baranayo, inuu isagu shaqo bixiye ku noqdo, inuu isagu kambanigiisa ku furto, inuu isagu shirkad uu leeyahay ku samaysto, inuu isagu ganacsi ka sameeyo, inuu isagu dad kale noloshooda wax ka taro, shaqaale ka qabarto. taasaa muhiim. marka waxbarashada waxaynu niri waxa weeye inuu fursad shaqo jirto iyo inuu qofku muxuu la yidhahdaa haddii aanay fursad shaqo jirin uu isagu shaqo ku abuuran karo. waxaana dhiiri gelinayaa dhalinyarada Soomaalida, waayo wadamada Yurubta aad u horumartay ardaygu markuu wax baranayo intooda badani wuxuu ka fikiraa ama ay wax u bartaan intooda badan in kambani ay leeyihiin ku furtaan. in badan oo ka mid ah sanadka saddexaad waxbarashada markay ku jiraan already kambanigooda way diyaarsadaan. waan xilli adduunyada xilliga kan aynu marayno waa xilliga ugu fudud ee taariikhda bini'aadamku soo maray ee qofku wuxuu leeyahay si degdeg ku furan karo. waagii hore inaad ganacsi najaxa oo guul leh aad gaartaa waxay ahayd ka awow hanti inaad soo dhaxashay oo reerkiina u leeyahay muxuu la yiraahdaa uu u leeyahay muxuu ahaa dhaqan iyo hidde iyo iska soo dhaxlid arrimaha ganacsiga, ama inaad lacag badan haysato wax ku abuurtid. laakiin maanta waxaas oo dhan ma jiraan. kambani yar oo IT ya, kambani yar oo multimedia, kambani yar oo saasoo abuuratid markiiba lacag badan baad ka helaysaa. marka focuskiina saara ama diiradda saara in waxa aad baranaysaan inta badan aad ugu tala gashaan inaad idinku shaqo bixiyaa ku noqotaan ee aydin sugin in cid shaqo idin siiso. qodobka saddexaad waxa weeye inaad awood u leedahay waxan. dadka bini'aadanka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qof walba meel buu u sakhiray oo u fudud looguna talagalay inuu nolosha bini'aadanka u ka kabo. kuma lihi waxba haddii waxbarasho aadan ku fiicnayn aad jeceshahay macnaheedu ma baran kartid. ma waad baran kartaa haddaad ka soo qaad engineering rabtid inaad baratid, laakiin xisaabta iyo physics aadan ahayn aadan aad ugu fiicnayn macnaheedu ma inaad baran karin. waad baran kartaa, laakiin waqti ka dheer bay kaa qaadanaysaa iyo dadaal ka dheer qofka kula midka xisaabta Ilaahay isaga u sahlay. marka inaad eegtid waxaan aan rabo inaan barto qof awood leh qof awood u leh ma aha horta. arrintaas waa arrin muhiim ah. intaa markaan uga baxo waxa aad baranaysid waxaan uga baxayaa tusaale yar baan rabaa inaan idiin soo qaado. dad badan baa hadda waddanka Mareykanka oo kale 80% dadku waxay ku shaqeeyaan wax ka duwan waxay maxaa la yiraahdaa barteen, waana khaladka doorashadii hore.
dad badan baa waxbarashada marka hore ku degdegaya dhalinyaro ah markay ku degdegaan kadib waxay noqonaysaa inuu ama shaqo ku waayo ama xiiseyn waayo eeg marka 80% 80% dadka Mareykanka ah oo ma garanayo dadka Soomaalida way cidinaysaa test kama samaynin waxay ku shaqeeyaan wax ka duwan waxay barteen waana sababta asaaska waa inaanu qofku doorasho sax ah samaynin sida daraadeed talada aan siinayo wax weeye dhalinyaro inta fursad haysataan qofkii awooda waxbarashada aad dooranaysid si wanaagsan u dooro intaa waxaan uga baxayaa qodobkii hore ee ahaa waxaad baranaysid waxaan niri laba go'aan ayaa qofka noloshiisa saameyn badan ku leh go'aanka koowaad muxuu yahay waxaad baranaysid saddex qodob baa asaasi ah baynu niri waxa inaad jeceshahay oo xiiseynaysid waxaan niri inaad shaqo ku helaysid ama adigu aad shaqo ku abuuran karaysid waa qodobka labaad qodobka saddexaad waxa weeyaan niri inaad awood u leedahay oo waxbarashadan ay tahay mid aan ku dhibaynin oo ku rafaadayn laakiin aad tahay waxbarasho aad hadii waxbarashadaadu xifdis u baahan tahay inaad xifdis ku fiican tahay hadday fikir iyo analysis u baahan tahay inaad mathematics ama xisaabta iyo physics iyo ku fiican tahay marka talooyinkaasi waa talooyinka aan ku soo ururiyay dhinaca waxbarashada waxaan idiin soo qaadayaa qodobkii doorashadii labaad arrintii labaad ee muhiimka ahayd qofka dhalinyarada noloshiisa loo baahnaa inuu ka fikiro labada go'aan ee saameyn badan noloshaada ku yeelanaysa qodobka labaad waxaan niri qofkaad nolosha la wadaagaysid asaas noloshaada weeye sidaa daraadeed inaad ka fiirsatid waa arrin muhiima nasiib darro waalidiinta Soomaalidu ummad generationadii hore waayadii hore Soomaalidu odayadii hore awoyaasheen ayooyinkan way diyaarin jireen gabdhahooda iyo wiilashooda dhinaca guurka talooyin bay siin jireen way aragnimadooda u gudbin jireen sida daraadeed qoyska Soomaalidu qoys adag buu ahaan jiray laakiin nasiib dar hadda arrintaas way luntay aabihii maxaa la yiraahdaa kontonkii sano u dambeeyay aabaha shaqadiisa oo dhan waxay inuu biil keeno waxa dhici karaysa waqtiga isaga iyo wiilashiisa isu yimaadaan ama gabdhihiisa isu yimaadaan inay yareyn sida daraadeed qof waliba oo dhalinyaro marka uu guursanayo waxay ku noqonaysaa wada cusub oo kaligiis uu falayo wada cusub oo kaligiis samaynayo oo qodxo badan oo cid wax badan u sheegaysa aysan jirin sida daraadeed halka kan waxaan idinku soo koobayaa oo aan rabaa inaad ila wadaagtaan arrimo aan isleeyahay waxay idiin noqonayaan toosh aad ku ifisataan mugdigan tirada badan maxaa la yiraahdaa qofka aad nolosha ka dooranaysid runtii waa nolol u baahan ka fiirsi badan qofka aad nolosha la wadaagtay qof ka haraya ma aha hadduu guurka hore ka xumaado dhibaatooyin badan iyo saameyn badan buu noloshaada ku yeelanaya sidaa daraadeed waxaan rabaa inaad ila wadaagtaan waxaa jirta mahmaah aan rabo halkan inaad ila wadaagtaan mahmaahdaas waxaa la yidhaahdaa heshiis cad saaxiibtinimo dheer buu leeyahay heshiis cad saaxiibtinimo dheer buu leeyahay qofka haddaad marka hore wax cad meel isla dhigataan waxa aad u fudud inaad meel dheer isla gaadhaan haddaad qofka wax cad meel isla dhigataan waxa fudud inaad meel dheer isla gaadhaan sidaa daraadeed dhalinyarooy waxaa muhiima in ay kuu caddahay si cad ay kuugu caddahay waxa aad nolosha ka doonaysid iyo qofka aad nolosha ka doonaysid waa laba arrimood waxaad nolosha ka doonaysid inay kuu caddahay qofkii kula wadaagi lahaa waxaas aad nolosha ka doonaysid inuu ku caddahay waayo haddaad markaad 20 iyo xogaa soo jirtay 25 26 shaqo heshid waxbarasho dhamaysid oo u baahatid inaad guursid waayo dadka dhan baa guursada oo aad fiirisid wiil ama gabadh nooca tahayba oo qof aad ka heshid arrintan labaad ee rabo inaad dhalinyarada u siibin waxa weeye dhalinyaro jacaylka iyo ka helitaanku waa laba arrin oo aad u kala duwan qof inaad ka heshid inaad jacayl dhaba u qaado waa laba arrin oo kala duwan jacaylka dhabta ah wuxuu yimaadaa dadku markay isguursadaan ama jacayl baa yimaada waa la isku waaraa ama nacayb baa la yimaada waa la kala boodaa laakiin guurka waxa ka horeeya waa ka helitaan qof kasta oo ka heshidna ma khasama inaad guursanaysid sida daraadeed waxa muhiim ah inaad emotionkiina caadifadiina emotionkiina inaad control kartaan qofka aad ka helaysid inaad indha sax ku fiirisid indha sax ah oo tiraahdid ma yahay qofkii aan nolosha uga baahnaa ma buuxinayaa shuruudihii nolosha ee aan u baahnaa waayo waa muhiim heshiis cad
saaxiibtinimo dheer buu leeyahay. guurku waa heshiis, waa contract dhex maraya wiilka iyo gabadha, kaas oo salkiisu yahay marka meherka u dhacayo. laakiin waxaa muhiima ka horeeya heshiis cad oo wiilka iyo gabadha soo dhex mara. gabaday anigu nolosha taasaan ka doonayaa, wiilow anigu nolosha taasaan ka doonayaa, diyaar ma tahay ma u tahay, waan ku jeclahay iyo waan kaa hela iyo waad qurux badan tahay iyo waxa dhow ku anfacaya maaha. waayo maalin kastaynu aragnaa wiil iyo gabar markay intaysan isguursan iska heli jiray, waa ku jeclahay oran jiray, laakiin markii la isguursaday bil kadib isfuray. arrintaas waxa weeye heshiis cad oo qof waliba waxa uu nolosha ka doonayo uusan qofka kale u sheegin, ayaa markii la isguursaday waxa la isku noqday dad cusub. qof walba wax cusub baa ka soo baxay. sidaa daraaddeed pointigan waa point muhiima, dhalinyaro aada uga fiirsada. waxaa muhiima inaad qoratid wiil iyo gabarba nolosha waxaad ka doonaysa. waa qoraalka ugu muhiimsan noloshaadana sidaan tilmaamay raad ku yeelan doona inaad qoratid noloshaada waxa muhiim ku ah. maxaan macnaheeda ula jeedaa? qoraal baad samaysanaysaa oo ah nolosha qofka aan ka doonayo waxaa jira waxyaalo aan rabo inaanay gorgortan gelin, oo maxaa la yidhaahdaa qofka aan u baahanahay inaan ka helo. waxaa jira arrimo laga wada hadli karo, qofku haddii uu la yimaado okay tahay, haddii kale laga wada hadli karo. waxaa jira arrimo laga tegi karo. marka liis dheer inaad qoratid, warqad inaad ku qoratid waxa nolosha aad ka doonaysid adoo u qaybinaya a b c. waxa weeye waxaad nolosha aan gorgortan geli karin, aadan gorgortan ka geli karin. haddii qofka uu fulin waayo waxyaalaha ugu qoran, hadduu qofkani kasoo bixi waaye waa ka helay, wuu muuq dheer yahay, wuu qurux badan yahay, waan ka helay, waxba kuma tarayso. waayo hadhowto waxa la hubaa inaad isku dhacaysaan, markaad isku dhacdaanna kala tegaysaan oo xaalad aan la mahdin ay ku dhammaanayso. sidaa daraaddeed qaybtan koowaad waxaad ku qoraysaan waxyaalaha muhiimku ah. anigu taasaan jeclahay, korkortan iima gelayso, ma aqbashay oo ma isla yeelayna. waxaad oranaysaa qaybaha kan waa arrimo aad ka wada hadli karno oo meel isla dhigi karno. qaybahanna waa haddaan helna waa okay, haddii kalena waa arrimo laga tegi karo. laakiin qaybta ugu muhiimsan inta focus ka saaraysid waa qaybta waxa aad kuugu muhiimsan nolosha. gabar yahay aniga waxaa muhiimiya, ama wiil yahow aniga waxaa muhiimiya inaan maxaa la yidhahdaa shaqada markaan ka imaado asxaabteeda waqti la qaato, inaan haddaan wiil tahay inaan kubad soo ciyaaro, waxaan u baahanahay inaan ehelkayga la xiriiro, waxaan u baahanahay. qofka nolosha aan ka doonayo gabar yahay aniga ama wiil yahow waxaan doonayaa aragtidaasaan nolosha ka leeyahay, sidaasaan rabaa inaan u noolaado, sidaasaan rabaa inaan u noolaado. arrintaasi ma tahay waxaynu isla jaan qaadi karno. runtiina way wanaagsan tahay inaad qofka aad nolosha la wadaagaysid oo aad rabtid inaad doorato isaguna sidoo kale uu haysto qoraalka qofka uu nolosha ka doonayo inuu haysto. marka haddaad isku soo dhacdaan ood isku soo dhawaataan way fududaanaysaa inaad meel dheer isla gaadhaan, oo intan aad midka ka tihiin aad ka wada shaqaysaan, intan aad ku kala duwan tihiinna aad iska dhaaftaan. waayo haddii ay isyeelato in badan oo ka mida inta qof waliba muhiimka u ah, haddii ay isyeelato in badan oo ka mida qaybaha qof waliba muhiimka u ah, waxa fudud inaad meel dheer wada gaadhaan. waxyaalaha furiinka tirada badan keena waxa weeye waxaan ismaaj karaynin, waxaan isu dhigmin, waxaan israacin. qofkan waxa eega u ah iyo qofkan waxa eega u ah. waxaa dhici karta in qof maxaa la yidhaahdaa ay muhiim u tahay in marka inuu asxaabtiisa waqti la qaato. waxaa dhici karaysa qofkan kale inaanay muhiim u ahayn. sidaa daraaddeed qofkan markuu asxaabtiisa waqti qaato oo shaqadii ka yimaado, hadduu wiil yahay hadduu qof dumara yahayba, in qofka kale ay dhibto. waayo wax isaga muhiim u ahaa oo prioritygiisa koowaad ugu jiray ma ahayn, qof wuxuu doonayay ma ahayn. sidaa daraaddeed iska dhac iyo muran baa ka bilaabma. waa muhiim si cad inay kuugu qoran tahay waxyaalaha aad nolosha ka doonaysid, aad u kala saaratid a b c oo ah qaybta aan gorgortan gelin karayn,
qaybta laga wada hadli karo, qaybta laga tegi karo haddii wax dhaama la helo, qayb laga tegi karo haddii wax dhaama la helo. waa arrintan aad iyo aad iyo aad muhiim u tahay qof kasta oo nolosha la wadaagaysid in haddaanu xitaa isagu mawduucan ku baraarugsanayn oo aanu aqoonin inaad tiraahdid adigu weydiiso ugu talagasho dhahdid war qof yahow maxaa nolosha muhiim ku ah, maxaan gorgortan geli karin, maxaan sinaba gorgortan u geli karin, aniga waxaan gorgortan geli karin kaas iyo kaas iyo kaas iyo kaas, arrintaasi sidee kula tahay. marka hadduu qofku kaa aqbalo waa arrin fudud inaad israacdaan, waayo qofka aad isku dareen tihiin inta badan. arrintaa waa muhiim dhalinyaro, meel ku qora hoos ka calaamadaysta. qofka aad isku dareen tihiin oo wax badan aad wadaagaysaan khaladkiisu in badan kuma muuqanayo. laakiin qofka haddaydin qaybtan hore aydan in badan isaga imanaynin ama aydan isaga mid ahayn, aad iyo aad ayay u fududahay inaad kala boodaan. sidaa daraaddeed talada ama naseexada aan idiin soo gudbinaya waxa weeye waa muhiim inaad haysataan qoraal ah waxa kuu muhiima noloshaada, kuugu qoran tahay waxyaalaha muhiimka ku ah noloshaada, qofka aad doonaysid inaad la wadaagtid, shuruudihiisii, heshiis aan maxaynu ku heshiinayna haddaan heshiis qorayn. heshiis haddaanu qorayn muxuu heshiis ku dhacay? waxaynu niri guurku waa heshiis, waxaana heshiiskaas lagu soo gabagabeeyaa oo la isku raacaa waa marka meher ku dhacayo. laakiin meherka ka hor waa inuu jiraa labadan qof waxay heshiis ku yihiin oo isla aqbaleen. ma aqbashay waa okay, maxaa la yidhaahdaa markaas waxa aad u fudud inay labada qof meel dheer isla gaaraan. markaas sidaasaad u kala saaraysaa arrimaha shaqadaada, arrimaha qoyskaaga. arrimaha shaqadaada markaad qortid ABC, A waa lama taabtaan, B waa laga wada hadli karaa, C haddii wax ka fiican la helo waa loo bedeli karaa. arrimaha reerkaaga ABC. arrimaha hiwaayadaada waa muhiim. arrinta tan hiwaayadda aad leedahay waxaad waqtigaaga doonaysid firaaqada inaad ku bixisid inuu qofkani kula dareemayo, khasamaa inuu kula hiwaayad yahay. waxaa dhici karta in aad wiil tahay oo kubad ciyaartid, waxaa dhici karta gabadha aad doonaysid inaanay kubad ciyaarin ama macnaba u samaynin, laakiin inay kula aqbasho inay hiwaayadaada tahay. waxaa dhici karta inay hiwaayadaada akhris tahay ood buugta jeceshahay. waxaa dhici karta gabadhan inaysan hiwaayadeeda ahayn ama wiilkan inaan hiwaayadiisa ahayn. waayo waqti aad wada qaadan lahaydeen haddii qofkii intuu buugga soo qaato uu kaa aamuso buugga akhrinayo, haddaanu qofkani marka hore kula qaadan hiwaayadaada oo ama aadan isku dayin inaad ku soo riixdid hiwaayadaada, haddii akhriska hiwaayad kuu tahay aadan qofkan si tartiib ah ugu qancin isaga laftirkiisu inuu akhriska hiwaayad ka dhigto, waxa way noqonaysaa meel dab ka shidmo. arrimaha qoyskaaga oo kale, maxaad reerkaaga u qabanaysaa, maxaad ka sugaysaa, maxaad dhaqaale siinaysaa haddii reerkaaga wadankii Soomaaliya jiro, maxaad reerkaaga doonaysaa inaad u dirtid, maxaad gabadhu doonaysaa reerkeeda inaad dirto. waxyaalo cad oo marka hore u baahan in la isla fahmo way si hadhow aan conflict uga dhicin. arrimaha diintaada, dadku aragtida diinta way ku dadka Soomaaliyeed alxamdulillah waa dad muslimiina, laakiin sida loo tatbiiqinayo way kala duwan yihiin. dadka dad baa 100% jecel inay diinta maxay ahayd sida ahayd ugu dhaqmaan. marka aragtida waxyaalahaas oo dhan inaad wax aad isaga mid tihiin oo mid walba aad waxa muhiimka ku ah waxa aad ka wada hadli kartaan iyo waxa haddii wax dhaama la helo lagu bedeli karo aad ka wada hadashaan. marka waxaan dhihi lahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyaro halku dhigan ah kala saara ka helitaan. way dheer tahay, way qurux badan tahay, wuu dheer yahay, jirkiisa dhisan marquu leeyahay. kala saara ka helitaanka iyo hooyada ilmahaaga ama aabaha ilmahaaga. waa inaad kala saartaa ka helitaanka qofkan iyo qofkan inuu yahay ama qofkan inuu noqon karo hooyadii ilmahaaga ama aabihii ilmahaaga. qofka bini aadamka noloshiisa waxa ugu qaalisan waa caruurtiisa. marka waalidkiis laga yimaado isagu wuxuu helo oo kasbado oo adduunkan uu ku haysto waxa ugu muhiimsan ilmahaaga. marka inaad eegtid oo tiraahdid wiilkani ama gabadhani ma tahay hooyadii ilmahayga ama aabihii ilmahayga. waxaan idinku soo gabagabeynayaa halku dhigaas. waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inaad ka faa'iidaan usii gudbisaan asxaabtiina
talooyinkan iyo fikirkan. waxaan rajaynayaa inay wax badan ka bedesho habka aragtida nolosha laga haysta ee dhalinyarada Soomaalida iyo sidiisaba guurka oo runtii furriinkii xilliga kan aad iyo aad u tiro batay. intaasaan kusoo gabagabeynaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.